suurayso magaalo awgeed nabad iyo xasillooni oo si lama filaan ah u baaba'day. Maanta enemiga qolaaseenna waa The Seraph of Endi, enemy aad iyo aad u xamaasad badan. Dhammaan dadkii ka waaweynaa 13 sano jir way dhammaadeen waxaana laayay fayris, laakiinse waxaa soo baxay vampires aad u khatar badan, kuwaasoo raba inay baabiyaan adduunka dhammaan wixii dad ku nool iyo wixii ay qabsan karaan. Sheekada wuxuu wareegaysaa Eugene iyo saaxiibka Michael ay carruur la socotay oo ku dhuumanaya qol gaaban, halkaasoo ay ka baqayeen inay qaataan vampireska. Laakiin si lama filaanaya daaqadda waxaa isu jebinaya vampireskii, kuwaasoo raba inay kaxaystaan carruurta iyo Michael iyo Eugene. Nasiib xumo waxaa aragnaa carruurtii dhammaan ay la wareegeen vampireskii, taasna Eugene waxba kama uusan qaban karin waayo waxaa wiil aan garaadkiisa caqligiisa aan waxaas ku filnayn. 4 sano kadib waxaana la tusayaa dhammaan carruurtii oo isku wada baxaysa si loo ogaado mid walba aqoonsigiisa iyo magaciisa u gaarka ah. Hadda waxaa noo qadaanaysa in carruurta loogu hayo meesha si looga miiran lahaa dhiigga. Markaana waxaana la tusayaa Eugene oo caag ku tuuraya meel, laakiin waxaa arkaya vampires soo socda kuwaasoo raba inay aad u dhibaateeyaan carruurta yararka. Eugene taas horey ayuu ogaa inay dadkan daran aad ayuu uga xanaaqayaa ficilada ay samayn doonaan dadka vampireska ah. Eugene ficiladaas aad ku xun aad ayuu uga damqanayaa wuxuuna bilaabayaa inuu weeraro isagoo tabar iyo awood ku filan aan lahayn. Vampireskuna waxay rabaan isaga laftigiisa inay dilaan, laakiin saaxiibka Michael laga raba inuu wax ka celiyo, taasna wax macno keeni mayso. Ayagoo raba inay dilaan ayaa meesha si lama filaan waxa uu imaanaya kabtankii vampireska. Markaas ka bacdi vampiresku iska sii daynayaan Eugene iyo saaxiibkan waxay bilaabayaan inay israacaan oo iskaga tagaan meesha. Kabtanka vampireskana asagana meesha uu ka tagayaa. Eugene wuxuu feer ku dhafanayaa saaxiibka Michael waayo wuxuu aad uga xumaa arrinta ka dhacda meeshaas, qalbigiisana waxaa ka baxaya holac aad saaid u ah waayo wuxuu ka xun yahay ficilada qaabka daran ee u dhaqmaya dadka vampireska ah iyo dhibaatada lagu hayo carruurta yararka ah. Markaa Michael wuxuu sameynayaa wax aad iyo aad la yaab u ah waayo wuxuu soo helay hub iyo khariidad ay meesha uga bixi karaan. Markaan Eugene iyo Michael kaliya ma aha, waa dhammaan carruurtii oo dhan. Markaan waxay leeyihiin hamiga ugu weyn noloshooda waayo waxay ku hami weyn inay tagaan adduunka aadanaha ay ka baxaan adduunka vampireska. Iyadana cid walba ku riyoonayso oo ah inay dunidan vampireska ka baxaan dunidaas kale ma noqon doontaa ciyaalka yararka caqligooda iyo garaadkooda aan ku filnayn inuu mid ay u rumowda. Dhammaantood waxaa niyaddooda ku jirta inay badbaadeen waayo waxay soo gaareen meesha ugu dambeysay. Laakiin dhacdada soo socota maaha dhacdo ay kulligood ay filayeen, mana aha dhacdo niyaddooda qaadan karta. Iyagoo is dhahaya baxa oo waad guulaysteen, baa si lama filaan waxa u soo baxaya kabtankii vampireska, kaasoo ciyaalka yararka ugu jeesjeesaya isagoo inaysan waxba ka qaadi karin. Markaas kadib waxaa arkayaan Eugene iyo Michael ayagoo dhexdooda xoolo lagu maray, taasoo kabtanka vampireka ahaa wuxuuna dhexda ka qabsanaya gabar yareed isagoo dhiigga ka dhuuqaya. Markaas ka bacdi Michael iyo Eugene waxay bilaabayaan in aad iyo aad u argagaxaan dhacdadan saa'idka ah iyo aan macquulka ahayn. Eugene ayaa wuxuu bilaabay inuu carruurta ku amro inay meesha ka baxaan, laakiin kabtanka ayaa wuxuu tusay inay tabartooda intaas isgaarsiisaneen, wuxuuna bilaabay inuu mid mid u laayo carruurta yararka ah oo dhiiggooda dhulka ku qubo ilaa la waayo wax meesha ka neefsada. Michael wuxuu bilaabay inuu biskoolada ka dafo Eugene oo uu ku soo diro kabtanka vampire. Go'aankaas waxaa go'aan aad iyo aad u khaldan waayo kabtanka vampireka ma ahan qof si fudud lagu dili karo, waana qof aad iyo aad awood u leh. Wuxuu bilaabayaa inuu Michael u geliyo gacantiisa oo xitaa ka jara gacanta uu biskoolada ku haystay. Michael wuxuu ka samrayaa nolosha oo dhan waayo wuxuu isleeyahay waa anta ugu dambaysa nolosha. Laakiin saaxiibkiis Eugene ayaa wuxuu bilaabay inuu biskoolada madaxa ka saaro isagoo aad iyo aad uga xun saaxiibkiis waxa ku dhacay. Michael saaxiibkiis Eugene wuxuu ku leeyahay meesha iskaga carar waayo wuxuu ogyahay hadduu Eugene uu meeshii joogo in isaga laftirkiisa ay dadka vampireska ay kacaysanayaan oo meeshii lagu celinayo. Eugene wuxuu bilaabayaa inuu cararo ilaa intuu carari karo. Misdhiikan dhacdada ugu darneed aragtida xalqadan socotay inay tahay dhacdadan. Markiiba Eugene wuxuu la kulmayaa ciidamada la dagaalama vampireska isagoo aad iyo aad u murugaysan. Markaas ka bacdi dhacdada waxaa loo wareejinaya 4 sano ka bacdi Eugene oo noqday nin weyn, kaasoo ilaa hadda niyadiisa ku jirto dhacdadii maalintaas ku dhacday. Ilaa haddana waxaa niyadiisa ku jira argoosi uu u qabay vampireskiisa. Haddana wuxuu rabaa inuu dhammaan baabiyo wixii ku nool adduunka vampireska.